waxaan rabaa toddobaadkan oo aan soo wadaa video muuqaala oo aan uga hadlayo dacayada ay faafinayaan dadku reera madaxweyne Farmaajo oo qabyaalad dilootay oo doonaya inay rajadii Soomaaliya god isku ridaan ayagoo aan waxba ka qaban karin. waxaan doonayaa inaan bal in yar oo kooban dadka Soomaaliyeed wax fahamsiiyo aan hadalkayga qadiyadeeda waxay tahay madaxooda ku shubo. maxamed cabdullaahi Farmaajo isagoo musharaxa oo madaxweyne ahayn ayaa aniga taageero u ahaa. Farmaajo anigu lacag iguma shuban, ku qabiil ma ihi, Soomaaliyaan isku nahay, haddana isagaan taageeray. 12 musharax oo reerkayga ah oo sharaxan ayaan isaga taageeray. 4 sanadood waxaan mucaaradaya ka soo horjeeday siyaasadda Xasan Sheekh Maxamuud oo reerkayga ah oo nin hawiye ah ayaan ka soo horjeeday oo diidanaa. maxamed cabdullaahi Farmaajo aan taageeray. dabcan qaarkiin ma aqoonin anaa idin baray. qabyaalada dhibkeeda aan idin sheegay. qabyaalada dhibkeeda anigu maxay tahay qadiyadeyda? qadiyadeyda waxay tahay idin sheegaya caawa dhagaha u fura. waxa aniga aan rabaa idin sheegaya. waxa igu wallaahiya, waxa igu billaahiya, waxa igu tallaahi haddii Etoobiyaan iyo Soomaali iyo Ugandes iyo Kenyaan iyo Suudaanes uu ka tagto inaanan yeelaynin xabashi, inaan yeelay dalkayga, inaan u ogolayn jaajuus xabashiyeed inaan hoos tago. waxa igu wallaahiya, waxa igu billaahiya, waxa igu tallaahi inaan yeelay. maxamed cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynihii Soomaaliya, waa la doortay, waa madaxweynahaygii. waxaan isku dhaarsanay oo aan ku heshiinay oo walaalay iyo saaxiib ku noqonay in dalkan cadowga Itoobiya laga qabto, in dalkan argixisada laga qabto, in dalkan tuugada laga qabto, tuugada horarka ah ee dhacaysa in laga qabto, inaan soo celin rajada ummadda Soomaaliyeed. taas ayaan aniga iyo Farmaajo saaxiibna ku nahay, walaalna ku nahay. haddaba maxaa dhacay? ma anaa madaxweynaha mucaaraday mise madaxweynahan dhaliilay? waxa weeye hogaamiyaha markasta ma xumee, waxa xun rakaabkiisa xun. haddii rakaabka uu madaxweynaha ka xumaado, meel uu aadi kara madaxweynaha male. qadiyad cad waay. madaxweyne maxamed cabdullaahi Farmaajo wejiga horeba wuxuu magacaabay xoghayntii Cali Maxamed Geedi oo 25,000 oo qof oo reerkayga ah ku dilay xamar ama ka qayb qaatay dilkoodii. 1,500,000 oo reerkayga ah ka barkay magaalada Muqdisho oo xabashi u shaqeynayay, oo jaajuus xabashiyad ah, oo liyaasiyaad Maxamuud Shire oo reebtiyaashiisa ayuu magacaabay oo agaasimihii borotokoolka madaxtooyada u magacaabay. 2 wuxuu la taliyihiisii ammaanka u magacaabay nin la yiraahdo Xuseen Macalin Damuumaaye oo ah xoghayntii gaarka ahayd ee Gabra xoghayntiisii gaarka ahayd, ninkii sirdoonkiisa ahaa ayuu u magacaabay la taliyihiisa amniga. marka aniga waxa aan doonayo maxay ahaayeen? marka
ma waxaan doonayay oon xasan sheekh ku haystay in meesha laga qaado farmaajista kaliya oo tuugadii iyo jaajuusinta ay soo laabtaan maya ma doonin markuu farmaajo magacaabay waxaan idhi qaladkii koowaad oo galay kii labaad oo galay waxaan idhi maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu yidhi 6 sano dalkan dowlad ma yeelan taasoo ka dhigan aniga iyo maxamed siyaad barre adeerkii maxamed siyaad barre dowlad uma dhaxayn waxaan ku idhi madaxweynaha uu ku qaldan yahay ani waxaan ahay weri waa shaqadii maxay tahay ani journalist aan ahay muwaadin Soomaaliyeed ah werinimadii waxa ay dheer waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo aan weligii intaan noolahay aan aqbalayn Ethiopian aan aqbalayn Ethiopian jaajus Ethiopiana inuu dalka ma taqaanaa ka howlgalo ama xil ka qabto ma ogolaanayo shaqadiida waay fartaan ku fiiqa waxaan leeyahay kaas gabro la shaqeeyaa kaas waa jaajus Ethiopia cidda magacaabdan sheegaya waa shaqadiida haddii aan idhi maxamed cabdullaahi farmaajo nimanka uu magacaabay waa hebel iyo hebel oo la yaqaano oo xasuuqaas ka qayb galay oo Ethiopianka u shaqeeya haddaan idhaahdo ma inuu madaxweynuhu ka jawaabay iyo dowladda ka jawaabtay ahayd mise inay beeshiisa ka jawaabtay ahayd maxamed cabdullaahi farmaajo ma madaxweyne marxaanba mise waa madaxweyne Soomaaliyeed madaxweyne Soomaaliyeed ama soo madaxweyne marixaan hadduu madaxweyne Soomaaliyeed yahay madaxweynuhu xafiis buu leeyahay shaqaale uu leeyahay afhayeen uu leeyahay wasaarad uu leeyahay haddii la eedeeyo madaxweynuhu ayaga ka jawaabayo qof kasta mowqifkiisu waa cad yahay haddii ay dhacdo in aniga ay soo caayaan oo ii jawaabaan oo ay xagtaan oo saakay dhigaan mataqaana kuwa reerkiisa ah wadaniin saakay dhigaan ya oo shalay markaan aniga xasan dhaliilayay oo dhaliisha xasan sheekh maxamuud sheegay dhahay daahir cali soo waa wadani oo markaan farmaajo taageeray dhahay waa wadani haddii markaan farmaajo iraahdo Ethiopianka asoo magacaawdo madaxweyne ka laabo waa qalad jaajusita Ethiopia iraahdo haddii ay tiraahdo waa doqon waa nacas waa heblaay haddii ay tiraahdo adigu baa qalbiga hashay adaa isku soo jeesay mawjado qabyaalada ka buuxda dadku u sheegtay ee aniga iyo awooyaashay iyo inta ehelkayga inna waxba ka baqaadi kariis waxa weeye wadaniga waxaad u taqaanaa sidaad rabto ayaa u taqaanaa kaa rabtaa u taqaanaa kan ku nacamle u taqaanaa wadani kaas ma aniga hawiyaan ma taqaanaa jacayl u qabin gaara madaaradan u qabin jacayl gaara aniga dadkayga iyo dalkayga u qabaa jacayl doofaarka ma cuno marqiisana waa cabaa aqligayga ma dhadhacaayo aqligayga soo ma galaayo runtaa idin sheegaya waxa weeye dalkan waxa baabiiyay waa Ethiopian waa xabashi iyo jaajuusi Soomaaliyeed oo u shaqeysa oo maamul goboleedyo been loo abuuray oo la kala xirxiray weey qofka Soomaaliga ah wadaniga aniga ila hadli kara waa qof kale jaajuuskaas hal eriyo markaan dhahay Siyaad Maxamuud Shire iyo Xuseen Damuumay waa jaajuusin Ethiopiana qofka sheeganay damiir Soomaaliyeed waxay ahayd inuu taageero yiraahdo madaxweyne ka qaad meesha oo codkiini waxa weeye quraankii alif ka xumaado albaqara kama hagaago aniga qalbiga gilimayso maskaxdeeda gilimayso in madaxweynaha aan inta u sacabtumeynay oo aan dooranay oo aan taageernay oo shacabka rabitaankiisa ku soo baxay inuu ku daafuro inuu soo magacaabo jaajuusin waana huwa uu ka laaba maxamed cabdullaahi farmaajo teedii tagaysa uu ka laabana لأنه أنا فرماج حلك مرة أنا فرماج لعك مرة أنا فرماج على كاس يدول النمداس أيام كصاحبنا ولا لا كنا قفك الدوني إنه إثيوبيان كجاجوسين تضد الدفاع أو إيه رأي أنا جو إلى هذا ما حد وقع هذا الشيء وحتى واحد منطقة أنا معارض أنا قلت معارض معنا متقارير أنا من فرماج أي حاجة أنا في الصومال من فرماج أنا أي حاجة ما ذيك أي حاجتين
qolooyinkiina ku reerka farmaajo idinka ma u hadli kara farmaajo waxaad u keeni kartaan kaliya waxa weeye haddaad hadashaan inay intaasoo qabiilna ka soo jawaabaan oo laydin arkay shalay iyo maanta ood yaabto wax ka dhaca Facebook ninkii 12 milyan oo Soomaali ay taageersaneed maanta idinka unbaa taageersan shacabka oo dhan waa kala kaxayseen muxuu faa'iido ku jirto maxaad qaban kartaan waxaad qaban kartaan oo afar adduunyo ma jirtaa waxaad qaban kartaan ma jiraan waxaad qaban kartaan waxa weeye inaad shacabka kala dishaan in hawl aan idin banaanin ka hashaan aniga shaqadayda waa journalism waa wariinimo aniga waxaan ku noolahay critical inaan wax critigareeyo dhalilaha tilmaamo waa shaqadayda professionkayga waa haddaan rabin farmaajo inuu wax noqdo shalay markuu musharax ahaan ka sheekay lahaa buugii uu qoray aan waxaan dhihi lahaa buuggaas soo qoray may waas iluusiyo waxaan ku idhi haddaad maanta aan dhihi lahaa shalay farmaajo buuggaas soo qoray dhacdooyin kale ogaha aan sheegi lahaa oo documentary aan soo bandhigi lahaa ya farmaajo madaxweyne ma noqdeen qof Soomaali cod ma siiseen laakiin waxaan u dagaalamayay in Soomaali isku timaado waxaan aaminsanaa inuu yahay wali waxaan aaminsanahay inuu yahay ninka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalka wax ka qaban kara inuu yahay laakiin taa micnaheedu ma aha inaan noqon nacamleeye waxaan u sidano oon 4 sano u dagaalamayo inta ka horreysay u dagaalamayo Cabdullaahi soo joogay oo inta ka horreysay aan argagixiso oo dagaalamayo waxa way dalkayga inuu gumaysi qabsan weey inaan nacamleeye ma aha ilmaha baahan maahay shirmaadka la siiyay من شقيستو حوجيس عننا هذا أتقانان دولة نيم هذا أتقانان إن فرماجة تاجر دو حبش مقعاب أنا وما قانا دولة نيم عروة كاسة فيريا واحد قبك تان شيء نيمك ينكرهرك أي قبله ينكرهرك فرماجو إيه هبين مالا مالك ببغل الشيء محمد سياد بركوي لبا تسخن dalka Soomaaliya haystay oo geeska Afrika ciidankii ugu xoog badan sameeyay ayaa dadkii horta ku cayseen oo magaciisa awoodiisa isticmaasheen maxaad ka dhaxasheen waxa ka dhaxasheen qax waa ka xumaaday ilaa hadda xanuunkan dareemaya dibka la idin geystay ay Soomaalidu isku tagtay idin geysatay xanuunkeedan dareemaya habeen maalin 22 sano kadib maxaa dhacay سدح رئيس الوزراء إن صامرتي محمد عبد الله فرماجة رئيس الوزراء صار نقطة واللي أري لحظة عن تقربها على قبتها على قصاري حلك اسكعش اللي يري ساعة شرطون أي إن صامري لحظة عاسكر دراه ظلمي إن تقربها على قبتها اللي أري عبد الولي يلقى إن صامر الوزراء النقطة ونين مريحاني أها وها لحظة عن تل أري سكر دراه قربها على قبتها على قطور كم مقنعين ماشي أكون مقنعين لكن ودين شيء أما أود العاوي رول كسماية كجوكتين برهيرة لحصة أحمد مدوح بضغ بحيكس يكنياس وط ما حد قبل يصير ده نمد العاوي شرفتيني هذا واحد قبل كرتين ما حد قبل كرتين واحد قبل كرتين عاوي تبرتين مع أي كريا من عيتك كريا تبرتين عاوي marka ninkaan soo dhoobannay oo aan soo garab galnay oo aan dhahlino hogaami ayaad inta iska diyaar isku rartaan ayaad xamar buuxiseen oo meel walba ay la taagantiin maxaa qaban kartaan awoyaal maxaa qaban kartaan ii sheega wixiinu kaliya idinku ma fashil ba ka shaqeynaysiin hadda waa ka maanta hawiye oo iska jiifay oo iska hurdaayay oo intaasoo nin hawiye hal tartamaysay rasaasta habeenkii wax amar loo riday u soo baxay ogeedin oo iska hurdaayay iyada hurdada kicsan واحد موجسين قبيل شال مركان حسن الشيخ محمود أنا لله واسعبريسين مركان فرماجات لليون له نمك إثيوبيان كان قاعد عفنا وحلدين ظاهر دو الدولة دارو ديدية عقليين أنت أسكليوه وراني أي قصبة يعني أنا ما أدرك فينا كل شيء هدار يعني برنامج استوى حرب شيء كراني ما هي أنا ذاك لغية ذاك الكلام معي بريم مستر الدور معها واحد كقلدان دولة شمبري جت دولة شمبري جت أنا قف يقول رئيس أو مجحابي إثيوبيان جاجوس كيسون نقدر كل كلام حكي سوى يعني مرك أنا ما حسنا نعبا ما تقانا موحنا نعبا نمك لجوا جميع نعبا ما يمن نعبين هداو الدنيين تهين سومالي أو ضح قرطان
marka qabiilka aad u qaylineysaan marka waxaas jigjiga tegay oo dhulkan dhul Soomaaliyeed waa dhul Itoobiya waa dhul Soomaaliya ma aha marka uu yiri dadkan dad Itoobiyana waa maxaad u hadli weysay xageed ku maqnaydeen farmaajaha madaxweynaha hal maalin ma ka hadlay maalintii Cabud Waaq Mariixaan isku dhameynaa ana ka hadlay hal nin siyaasi oo la yaqaan Mariixaan ma ka hadlay waxa ay wallahi oo waxa ay billahi oo waxa ay tallahi inta aan noolahay awoodda aan leeyahay waa inaan hadlo wallahi oo billahi oo tallahi aan ku dhaarnaa magaciiba weeye inuusan Itoobiyaan u jaajuusa oo dalkan dimbi ka galay oo dalkan jaajuusay oo dagaalka Itoobiya ka soo qayb qaatay inaana inta xil loo magacaabo ana ka aamusin Ilaahay baa igu qofka muwaadinka ah ee Soomaaliga dalkan qalad ka galay waxa la gudboon inuu soo istaago hadlo wada shacabku qalad ka galeen hal la yafiyo waa taariikhaha dunida waa sida lagu shaqeeyo dawladdu waxay ku toostaa ay ku hagaagtaa dhaliisha weey nacamleyn maaha Soomaalidu waxay ku baaday meel walba looga heesayaa soo dhawo ani maalinta waxaan ka halay doorashada ku guuleystay inta ka horreysay waxaan u ahaa actor muhiima oo u qaabilsan xayeysiimaha iyo suuqgeynta u qaabilsan laakiin maanta madaxweyne noqdo waa ka fariist maxaan u fariisanayaa waxaan ka sugayaa wax qabad qofka loo heesayo horta maxaa loogu heesayaa wax qabad ma ka haysan qofka horta wax ma qabtay taageero waa taageero dawladda taageeray laakiin ninka loo heesayo loo sacabto ma wax ma qabay inagu ma waxaynu ahayn dad Itoobiyaanka u jajaban mise waxaynu ahayn dad gabre iyo xulufadiisa Itoobiya ee dalku meeshay ka soo ku hayso ee walaalahayna Soomaali galbeed ogaadeen iyo gabdhahooda xabsi u sameystay ee jarjaraya ee dhibaatada ku wada ka soo horjeeda ee isbedel doona haddaan isbedel doon ahayn wiilashi shalay aan ka dagaalameynay ee cadawga la socday anoo soo nool oo hortaagan leeguma dul magacaabayo umana nacamlaynayo waxa way muuqifka daahir calasow ee qof kasta oo Soomaali uu qalbiga shanayo waxaan ka codsaa qof Soomaali inuusan igala xaajoon igala soo xiriirin wax ku saabsan Itoobiya maxamed cabdullaahi farmaajo kulligood ba ra'iisul wasaaraha Mariixaan oo magacaabo waa nin Soomaali wasiirada Mariixaan ka wada dhigo waa nin Soomaali gabdho kulligood hasiyo xafiisyada hasiyo gabdho Mariixaan waa dad Soomaaliyeed laakiin qof Itoobiyaanka u shaqeeyo jaajuus oo liita ma yeelay aniga daahir calasow leeda ma yeelay meediga qoro ma yeelayo oo ma yeelayo oo ma yeelayo waxa aniga farmaajo waa madaxweynihii waa ninkan taageersanahay wali waan ogahay hadalkayga wuxuu sababayaa uu difaac noqonayaa qarankaanu badbaadinayaa waxa isku qaladaa Soomaalidu waa dad xiisoolayaal qofka markuu yimaado sacbiyaan ayaanta kadib ku yiraahdaan waxbu sameynaysa leeyahay war niman Itoobiyaan oo keenaha rasuulaha ka dhigay Itoobiya ee wato wasiirkii ka dhigay Itoobiya wato maxaa laga qaban karaa haddaan hadalna anagoo reer hebel oo ka dhashay ninkaas ayagana anaga xumaanayo markaas la aamusan yahay oo dalkaaga lagu galgalanaya waxaas dow ma aha inagu hadduu doono reer dalal ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada wuxuu rabaa ka dhigto dad Soomaali ka dhigto wax macnaa ay sameynaysa male waxa meesha yaalla waxa weey Itoobiyaan jaajuuskooda xil looma magacaabay farmaajo ninka taageerayay codka siinaya caruurteeda u soo bixinayay ee u oleynayay ee habeenkii ugu dambeysay saqdhex codkii ma taqaan daljir ku raacay ee u oleeyay inay ku biiraan aniga way laakiin Ilaahay buu igu cadaabi oo Soomaali qiyaamo ayaan ka galay haddaan Itoobiyaan aan ogahay nin jaajuus oo Itoobiyaan oo ogahay xil loo magacaabo aan yeelo idinkoon dad xagxaganina idinkoona kibrinina waxa waajib idinku saaran yahay inaad dadkiina ka mid noqotaan in aad naga qabataan Itoobiyaanka jaajuusinta ee uu magacaabay ee madaxweyne farmaajo ee la yiraahdo ka laaba madaxweyne war ka laabanaya hadda uu ka laabanaya waa huba laakiin waxa maanta qabyaaladu waxay gaaraysaa xasan sheekh markaan dhahay Itoobiyaanku wata oo jigjiga hadlay oo dadka la xasuuq ka hadlay
oo kubii mataqaanaa gada lagu duqeynaya kenyaanka u sujuudaya aan ka hadlaya wadani waaye daahir cali soo baqbaq waa wadani ninka hawiyaha moogta waa wadani macnaha kan marka uu jaajuuska magacaabay ma ku sacbisaan oo dhahdaan sida magacaabi kartaa jaajuus ka laabo hasha xali geel kama ka horeeyo sanqaadkiisa uu leeyahay quraankii alaf ku xumaadana albaqar kuma hagaago waxa weeye jaajuusiinta haddii jaajuusiinta laga fursan waayo waxay noqonayaan rakaabka kuwa ugu dambeeya ay noqonayaan oo iyagu dhuumaanaysanayo xishoonayo meel lagu qariyo noqonayaan laakiin ma noqonayaan kuwa nahorbooda ee rasuul wasaaraha noo soo xulo ee golaha wasiirada noo soo xulo ee dowladda faragelin ku yeesha jaajuusiinta ma noqonayaan hadduu adeerkaya haday ku taalla hadduu abkowgaya haday ku taalla we don't care dad Soomaaliyeed ayaa saacada in la hadlayo lagu garaacayaa jeel ogaadeen oo ku jiro xabashidu dhulkeenay doonaysaa inay qaato waxay doonaysaa inay burburiso kuwa shabaab soo siinaya hubka ay nagu qarxinayaan ee arinta abaabulaya waa Itoobiya kuwa maamulada xunta kala googooyay ee meel kasta maamulku gaar ka taagay waa Itoobiya maalintii la sugayay in golaha wasiirada Jubbaland la magacaabo wallahi oo billaah tallahi na beesheegin maalintii la sugayay in wasiirada Jubbaland la magacaabo ayaa waxa dhacday khilaaf waxa ka jiray Hirshabelle gabra wuxuu aaday Hirshabelle برنا وحلا بلامي إن قالها وزير الله مقعد دونه أحمد أبو وحوري ويباقتي مقعبستي قالها وزير أم حدا وحوري ها قبر أنا قام مقرن قبر وحجرة وحصو حالنا يا قلاف غير شبال ما هو حاسد النماء ما هو حاسد نربطه وحوي هذه أما الدارات أهو أما هوية أهو أما عدة ربطة أهو هدف كصومالي قفك على صاحب كرو وكل ما يسنو حوي إثيوبيا نعم حكومة إثيوبيا إيجاجوسين توجه الصومالية كوا مقع الصومالي وتأشق يا عبدي إلي كمديا قف جعلاضي إما الصومالي كرم ورشاي واحد في لسان ماشي قفك الصومالية مقام كيس مراي مدحوين فرماجة سينايين وعي وحو كل هاي واحد إيسو ديسا ملكي لها يونيفرسال أحمدي أبو بكر إيوري عبد المالك عطان وأصلا يا إيسو ده نكا أنا عسوتي ملكي لها يونيفرسال على مسارك في قيب قال يا إيسو ده وادي سيلاين جروب وادي نسا عبد إلي صاح الله جاجوسي توبيانا صاح الله وحكو ده حد الداية مركز على الأرض عبد إلي صاح الله يي عبد إلي صاح الله هذا هلا الدايو هذا إسكسي الداية عرب كلها يونيفرسال أو منصور تيجي أسوي لي بالسوقري أو حوليه هي أو كل ما يحس سوقريان نينكي وفرماجة صد ديواي عبد إلي يا أمري أو هرا لقى صد داي أسوي جوجو أو منصور فردي من عقب بحين سوقريان ما قا محمد أنت على أكورما مركاسة عنق أما قبل حنا مريحان هو قبيلة عندها ترتي أو لبعض بتجيب قصية أيوة حين الصفرديان أي منطقة ظاهر على صوت وحوم معارضة الدولة الداعية ومدحوينهم معارضة وهنا مدحوينها أنا أديك وحمجلين ضدني من المريض لعنا كم تاجرين أتكلم كم تاجرين ما لها ساهم بشيء ما كسر على يريد حوم قبل وعبد يورك ما يريد حوم قبل وبرهيل ما كسمع له يريد حبضهم قبل وما هل ما مولو مريح عليه كمان سقين وهرمر مجالسين ضد كاجي وجامعة ما لسن وحبهم قبل وسياد بري أديك أصلا إن متقنا ذلك اللي صار oo waxa soo ku dhacay shacabkaaga adaa u sababa wili waasi hadlaysa qof si caynaysa yaa u shaqeynaysa hadda Itoobiyaanka u shaqeynaysa marka daar al soo caynayso farmaajo waa madaxweyne Soomaaliyeed madaxweyne Mariixaan maaha anuu madaxweyne iyo waa inaan dhaliil karaa oo adiga aad dul yeelataa inaan dhaliilo ay dhageysato waliba waa in gabadha hawiye ay dhaliil kartaa waa in gabadha majarteen gabadha mataqaan isaaq ay dhaliil kartaa farmaajo haddii farmaajo wax laga sheego oo soo boodo dadka waa boodaya marka anaga ma rabno markaas madaxweyne anaga qabiil ma rabno adiga adiga kugu xumeeyayno ayaan diidaynaa asagana oo hadda wax kasta wanaagsan oo sameeyay diidaynaa oo leena ma jiro waxba kama jiraan kan waa madaxweyne Soomaaliyeed ma madaxweyne Mariixaan waay soo la isku dhabqin ma Facebook waxaad gaarsiiseen Facebook maanta waxaad gaarsiiseen fiiriye وكا هويه انت حشوني افكيست وكا عاود عيتمي سيمركا من نما الصوماليات كل هذا
midnimo Soomaaliyeed seen ku raadinaa seen niyadii jirtay ee taagneed aan ku sii wadnaa xishood darrada alla soo taagantiin ayaa dadka Soomaaliya la yaaban yahay markaas si inta adagtiin war fiiri nin leeyahay Cabdi Xoosh annaga hadda habeen dhawato gabar reerkayga oo hawiyaha oo abgaalaha oo islaa oo aabaheed uu Maxamed Siyaad Barre dilay oo agoon ahayd oo aabaheed lagu hordilo xanuunsanayso munasar la yiraahdo ayaa soo hadashay ciil baahay waxay ku tuurtay erayo mataqaanaa farmaajo toddoba gabdhood oo hawiyaha oo abgaalaha soo hadlay oo gabadha canaanay oo dhahayo waxaad samaysay waa qabyaalad ha ka haldin waa qaldan tahay soo fariiso haddeertan naya soo fariiso kaamirada oo raali gelin bix gabadha in raali gelin bixisaa lagu qasbay bal idinka ragiini ninka la yiraahdo Cabdi Xoosh oo maalqabeenka Siyaad Barre aha ee maalqabeenka atujaarka ah Maryaxaan ayaa inta soo fariista ka soo hawiya caynaya maanta ba hawiya saana hawiya waa dugaag hawiya futa madow futa cadde ba mid kale oo leeyahay dabca siro oo dhigaysan waa waalaya ayaa ay jira mar walba xasaga guutaad soo fariisto farmaajo dalka hogaaminayo hawiya wax ma gartaan waa dugaag qaraxda lagu dhameynaya hawiya waa badawo hawiya waa asaas oo la fadhiya kuwi aniga halkan igu jiray ee Maryaxaana ay fiiso waa duubay ma aragteen hal gabar oo Maryaxaana oo intay meel fariista dhahayso waa ka xunna wuxuu Cabdi Xoosh sheegay waa ka xunna wuxuu sheegay mataqaanaa dabcasir waa ka xunna wuxuu hebel sheegay ma aragteen hal qof oo apologies bixina dhahay waa ka xunna daar al social markuu xasan dhalilay waa taageersanayn abaalku noo galan ogna kasoo bilow ani qayb dambe u jirtaa maraba inaan hor dhaco wiilkii yaraankii guuleed mise diiriye ma aqaan labada mid uu ahaa magaciisa diiriye Maxamed Siyaad Barre mise guuleed Maxamed Siyaad Barre uu ahaa garbahaarey asagoo saa u duuban oo toogasho la tooganayo ayaan isku duubay oon ka soo kaxiyay oon lacag abtigay uga qaaday xaaf oon siiyo oon dhahay lacagtaan qabso oon dalka ka saaray oon ku dhahay si nabada meel nabada ku tag ma jirto qof sameeyay ma jirto maalinta isqabsadeen korneelkii oo xaashi furre iyo gabdhihii habargii guriga isku qabsadeen aniga waatan aan soo saaray hawooyina aabe aamus urugada waan kula qabnaaye asagaa la saftay odayga Maryaxaan korneelka ahaa ayaan la saftay ya dadnimada fiiris si loo kala gobsan yahay Soomaali si u kala gobsan tahay inta kale ka akhriya Soomaali si u kala gobsan tahay maalintay korneel xaashi furre oo Maryaxaana oo korneel xamar joogay iyo gabdhihii habargeeda guriga isku qabsadeen aniga xaashi furraan la saftay maalintii diiri mise guuleed Maxamed Siyaad Barre ay nimanka xawaalo garbahaarey ku qabteen aabihii oo ka carray ya dadku igu meesha ka gowracayeen qofkay arkaan aniga wiilkii isku duubay oo yiri ugu duldila ama kaamirada ugu duldilaan dhahlay ugu duldilo oo la isku leeytay oon ka soo dhoofiyo dhahay tag maalinta abud waaq lagu dhibaatada ka dhacday anigu baa ka hadlay anigu xamar joogo 1993 ayaan qoray aqliga hawiye saada cali faqash xalimo qalif mujaahidad ee baaw naxariistay eeday mu ku dhacanin Maryaxaan maanta waxa siyaamay waxa la idinka doonay waxa weeye munasaraad markay hadashay 8 gabdhood oo reerka ahaa hadlay oo ka daba hadlay ragina markay hadleen dab casir iyo ninkii la yiraahdo Cabdi Xoosh hawiye caayeen iyo wiilasha kale hal gabar oo Maryaxaan dadka inta ana bixinaya xalimo hadda doonaysaan inaad awoortaan cuqdad qabiil oo mataqaana aad dib noogu celisaan 91 wixii dhacay iyo wixii ka horeeyay hadda dib noogu celisaan oo nagu celisaan hawiye futa xume ee dameerka dabada looga xiraa aqliga 6 saacaad yihiin hadda nagu celisaan oo haddaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka sheegna naga nacaysaan oo isirkeena nacaysaan waxa weeye anigu daahiraan ahaye kama jawaabayo dhibigu ma hayso ani caydo ku raaxaysta mataqaana anigu daarood iyo hawiye iyo isaaq anigu kalama jecli dad Soomaaliyeed nahay weligii waa la og yahay dhaqankan leeyahay anigu kritika waa ku difaacaya qof aan xaquuqdiisa u doodaya taan dhib kuma qabo
laakiin wallaahi oo bilaahi tallaahi kumanaan kun boqolaal kun oo hawiye ah ayaa soo kacoy gabadhii hawiye ugu nacbeed inay qabyaalad ka hadasho diidi jirta qabyaaladda xala waataa soo gasha lifeka wax afkeeda ka baxaya la ogaa wallaahi oo bilaahi oo tallaahi maantay soomaali rajo ugu dhowda ninkaa farmaajo ayaa maanta ugu dhow qof la isku raaci doono haddii farmaajo lagu kala tago oo hawiye iyo maryaxaan ama hawiye daarood loo kala safto wallaahi oo bilaahi ana madaxweyne ka ila saaray etoobiyaanka sidii rabeen ayaa dhacayso maanta ka jooga dadka adugu hormaraysaan farmaajo ee aad ku caynaysaan war hoy maryaxaano maanta ka jooga waa iga talo war hoy dadkiina caytamaya dad waalan waa dad xun ku jira qabiil walba dadka xun ee ku jira ee dadka caynaya qabiilada caynaya ee ninka inay hiilu yihiin soo muujinaya raali gelin ka bixiyo soo fadhiista kaamirooyinka oo si gobonnimo loo dhaqma haddaad diidiin oo cabdi xooshna hawiye caayo oo dabcasir hawiye caayo oo wiilashiina gabdhihiina inta soo galaan kaamirooyinka hawiye caayaan maantana madaxweynenimadii nin idinkeeda ka dhasho oo ku fadhiyo wallaahi oo bilaahi tollaati siyaad baraka ka dadacdhacayso siyaad bara taangiyo haystay geeska afrika ugu xoog badnaa afxumadiinu eersaday idinkoo geela ka yimid oo geel jira inaad garaacda xirataan dadka garaacdaan inaad dadka ku duushaan hubkii dowladda qaataan aad ceelasha ku aastaan taasay ka dhalatay dhibaatada taagneed 27 sano kadib tol iyo qaraabo haddaan nahay yaan naloo celin dhibkaas tol iyo qaraabo haddaan nahay dhibkii dhacay yaan naloo celin tol iyo qaraabo haddaan nahay maanta ninkaas wax ma tiri kartaan farmaajo ah xoolihiinna kuma imaan xooggiina kuma imaan Soomaaliya dooratee qabyaaladda aad ku taageeraysaan oo dacarta aad u beerisaan ka dhaafa waa iga talaca oo ogaada war hadalkaas caawa Soomaalida halka ku jirtay 2100 qof ee hadda online ka ay caawa meel iga qora kelmaddaas qof kasta waxba lagu xasuustaa haddii reerka maryaxaan culimadooda iyo xeradkooda ay cabdi xoosh iyo dabcasir iyo raga ka dhashay xun caayda ay hawiye caynayaan ee qabiilada kale Soomaalida caynayaan hadday intay soo fariistaan ay TV ama ka soo duubaan fiidiyoyo ama live soo galaan ay raali gelin ka bixi waayaan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ku riyoon dawlad Soomaaliyeed iyo Soomaali israacdo والله يا نقول ريان وحكي كلا وابين نكا مدحوينا أنا وأوجه نقلب في عنوية نكا فرماجة وحكي كلا عفضة أوكينا وأوجه كريه لكن الصوماليان كأقنا والله إني سيرين وبالله سيرين حتى وحكي الصعود فيسبوك أن عاول يابي اللي اسكو عيني هوية يمريحان أما هوية دور اللي اسكو عيني هدي أي شيء سعودان والله وبالله طلع ويسامينسا قولي كستا سامينسا دبع عسر مدح اللوغة مجره عبد حسن مدح اللوغة مجره gabadha hawiye ee aabaheed lagu hortoogto siyaad barasada xaq darrada dulmiga ah u toogtay ee munasalaad gabayre jana salaad gabadhiisi oo ahaa ninkii afgimbiga sameeyay ya markay haashay 8 gabdhood oo reerka ka daba hadlay oo xaal ka bixiyay oo gabadhii caayay oo lagu qasbay dal iyo dibad leeyay Soomaaliman u baahanay oo baahnimo aabaha waa la dilay sida loo dilay xisaab kale weey ما هي الماما كارنا لك واسئلو سينينا ما هي الماما كارنا أباها سيد اللو دلي لك واسئلو سينينا سيسو معلمة لغو هلو ساس درتيت أيا لغو يري فريصو هذا هلال وارين قبيل دنباك هالدين وهويو رن بل فيري قبل نمد هالكي مريش محمد سياد بري دالك أفجب الميليتري وقبصد كل 20 سنة ويستو جانس الدورشة كما قبل دالك أنا جالس أقول جلس سيد توقف وأنا أكمل هاي كل يجي كمل بعد أنت مال نقول ردي أيار أساس نقول فرق قفوا ما دباتين ويل يقفوا ما قبصن سياد بري أنت دورشة دالك قبتي سيد مقراد يقوم وريجي
laakiin xabad ayaa looga saara dalka waa ogtihiin dulmigii siyaad barre iyo qaar ka mid a ka dhacay ee qabiilo Soomaaliyeed kula kaceen wuxuu galaaftay oo gurigiisa ugu tegay oo dhibana ku noqdo qof Soomaali ah oo aan dhib geysan ayaa mataqaana loo dilay oo loo dekanay dad Soomaaliyeed ay ogtihiin inta meel lagu xiray in la laayay oo baas lagu furay nimankii Nuux Maxamuud inta meel dugsi iskuul lagu in lagu laayay imise kala qiyaasi kartaa oo dad Soomaaliyeed oo reerahaas ama riixanaha ama qabiilada kale oo loo dilay xaq darro iyo cadaalad darro oo loo dilay afxumada qof la dhashay ka soo baxday afkiisa waxa weeye waxa runta yaala suuqan idin sheegaya waxa weeye maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweyne Soomaaliyeed ana dhaliili karo gabadha kala dhaliili karto qof kasta dhaliili karto haddii la dhaliilo madaxweynuhu lisho ama uu qaadanaya ama uu ka jawaabay ama uu ka aamusaya haddii laakiin la arko qof maryaxaan ama daarooda oo ninka difaacayo qabyaalad ku difaaca haddii la arko waaba halkaan raba roob igu dad qaar faruuriyahay qaniyaan ani intuu musharax ah maxamed cabdullaahi dadkan ka dhashay way wacay maskaxda laada ma maanta nin daarood ma siyaad barre mataqaana ayaad wiilku adeer ku ahay ayaad mataqaana maanta anaga nagu xayeysiinaysaa ma umul miyaata umul ilowsho dhowda anu dhigta uma dhigin waxaan rabaa ka weyn laakiin farmaajo weligay intaan nool wallahi inaan ka yeelin oo billahi inaan ka yeelin oo tallahi inaan ka yeelin haddii wax kasta la ii sheego qof Etoobiyaan u shaqeeyo jaajuusoon ogoon xoogaal u ahay wallahi inaan yeelin oo billahi aan yeelin tallahi inaan yeelin waa sheegi hadduu adeerkay hadduu aabahaya war waa jaajuus Etoobiya la magacaabay ogaada Soomaaliyeed waa dawada kaliya la heli kara weey haddii se la yiraahdo dawladdan la bariyo jirtay yaan bal laga hadli la soo hadal qaadin waa tii la rabo taas wixii xabashida rabeen weey adeer hadday baasha fayraska duu ku galo waxa la yiraahdaa Soomaaliya xukuumadda daweynta ka hortaga ka wanaagsan in wax la daweeyo cudurka in la daweeyo in laga hortaga ka wanaagsan marka hore waxa weeye maanta guri kasto cuqda buuxisay afar maalmood ka hor waa la damaashaaday Soomaali dal iyo dibad isku sii u ahayd xamar oo dhan way u soo baxday gaalka ay dhan waa ogeydeen wixii lay labada reer u dhaxeeyay in xoog lagu kala qaaday oo xoog dadkii ay shacabkii majaarteen iyo sacad jidgooyinku iyo wixii dhexdooda yilay inay shacabka ta kaceen iska wareejiyeen farxad awgeed in ceergaabo iyo hargeyso iyo burco laga gabiyay oo laga soo banaan baxay waa ogeydeen in Soomaali meel kasta joogto farxadaas iyo midnimada Soomaaliyeed wareerkiina maryaxaanaha ku dheelina maanta waa iga tala awooyaalo maanta farxadaas ku dheelinina madaxweyne qabiil ha ka dhiginina war hoy maanta jooga ha waxa weeye gabadha hawiye hadday aragtay idinkoo daahir cali soo dulmi ku maagayo caaynayo farmaajo muxuu mataqaana wax u sheega u caaynayo ka yeelime doqon maaha qabiilka waxa weeye alla qabyaaladu kulla wallahi ana beegshay dadka jirkeena uga wajisa jirka qabyaalada waa weydii kartaan haddaan aniga been sheegayo waa arkaa qoraalka la soo qoraayo diiri iyo guulad maaqan magac wax leeyahay wiilkii yaraanka uu yaray maxamed siyaad barre garbahaarey maalinta aabihii uu ka baxay ee uu xadka ka dhaafay waad weydii kartaa nin kaamira wato isku ka duuba dhihi kartiin waa weydii kartiin wuu nool yahay inuu daawanayo gabar kale oo gardhacna ayadoo webiga isku tuurayso la eriyaayo wiil ma ku soo qabto oo ku soo kaxay baawrkiis ku soo qaado cunto ma ku sii waa la weydii kara gabadhaas oo guriga maxamed siyaad barre ka shaqeynaysa way daawanayaan gabadha way noo shaalayri wiilkii yaraankan wuu nool yahay way daawanayaan dan been sheegay qof kasta Soomaaliya weydii karto oo taqaana reesiyad bare ka jooga maanta waxa weeye qof bini aadan oo yeelaysa ma jirto kolba documentary aan diyaari waa isu doona saan u sameeyay waa soo wada
ma yeelayno oo qof yeelaysa ma jirto in idinkoo intaasoo waxgarad ilaahay idin siiyo oo aqoon-yahanno idin siiyo oo culamaa udiin leh oo qof walba leh in maalin walba dadkeeda ka dhasha dadka ay qabiil dhan caayaan in dadkeeda ka dhasha maalin kasta ay dhahaan mataqaanaa hawiye futa madoobe futa cadde dameeraalayaal istubidiintiyo oo la yidhaahdo ma cabdi xoosh waa hadda ninkii hantidii ummadda soomaaliyeed qaatay wey cabdi xooshigu oo qaa'inka ahay oo isagoo darawala adeerkii siyaad bare magaciisa iyo awoodiisa hantidii qaranka ku boobe ee tujaar ka noqday milyaneer ka noqday ayaa wuxuu caayay hawiyo dhan buu caynaya inta soo fariisto waa cabdi xoosh dabcasir baa waa waalan yahay dhihi jirteen hadduu waalan yahay muu farmaajo caayo hadduu dabcasir waalan yahay farmaajo ha caayo anigu caayi maayo anigu cabdi xooshna caayi maayo farmaajona caayi maayo mariixana caayi maayo daaradna caayi maayo laakiin dadka hadla hadday waalan yihiin marka xasan aan dhaliilno waa ayagu ku farxi jiro sacbi jiray hadda ha dhaliilaana farmaajo waa kaas niman etoobiyaan oo magacaabay jaajuusin etoobiya oo magacaabay ha waxan haddii kalento waxaad dhahdiin sida dadka qabaan doqonkeennu waa fariidkiinnuna waa doqon intaa dhaha inta meesha taalla waxaa weeye qof kasta haddaad maanta oo dhan sheekaynaysiin maanta oo dhan waxaa tii sheega qof bini aadan oo idinka dhegaysanaysa ma jirto waxaa weeye marada idinka dhacday waad ceebowdeen waxaa weeye maxamed cabdullaahi farmaajo aad ceebayseen madaxweyne soomaaliyeed ka dhigteen madaxweyne qabiil waxaasi waa fudeedkiina siyaad waa dacweyseen haddii wilaad sano dalka heestaangiyo heestay haddaad dadku u dakanayseen oo magaci intaad geeljirayaasha geela ka timaadeen garaadda xirateen oo dad ku dhibaatayseen madaxweynahana difaacdeen ay ahaydeen laakiin awowayaal adeerayaal ayayaal habaraydayaal sidaad u af xun tihiin uma itaal roonidiin haddaa u itaal roon tihiin barahiiri halka ismaail lagama eriyeen 3 ra-iisul wasaareed kama eriyeen siyaad bar lama eriyeen marka hadday saas tahay maanta jaanis haysatiin iyo akhay madaxweyne nin reerkiina madaxweyne ah u sii calamitay 4 sano kadib soo laaba lahay oo ka dhaafa dhibaatada ku haystaan annagana han nacsidina madaxweynaha aan taageersanay han nacsidina inaa idhaahdo farmaajo waa dhaliilayaa maanto nin cunug jaajuus oo etoobiyaan oo magacaabay inaan nacbaha ma aha macnaheeda inaan aniga nacbahay ma aha inaan caayana ma aha wax sixid waayo ee dhaliil aniga soo fariistay sida dabcasir iyo cabdi xoosh ma dhihin nin maryaxaana dalka madaxweyne kama noqon karo nodododada foto madoobayaal faqash waxaasana ma dhihin ani waxa kama hadlin ani waa soo galbiyey waa idin sheegay waa isacbiseen waa soo galbiyey markuu madaxweyne noqday xaq waxaan u leeyahay aan la xisaabtamo maanta aynu xisaabtanee awoyaal ayayaal aynu xisaabtanee majaalo maryaxaanow aynu xisaabtanee waxaad ii keentaan hal gabar oo dhayso waxay cabdi xoosh ii sheegeen dabcasir iyo ragga kale ee boqolaalka ahaa ee soo hadlee caygtamay ee hawiye oo qabiil dhan oo soomaaliyeed oo qolo walba le caayay raaligelinaan ka bixinay aniga dukumentiga kusoo bandhigaya inta gabdhood ee hawiye ee monasaraad u jawaabtay ayaan soo bandhigayaa ii soo hela haddaad soo heshaan inagu gunbaynu nahayba maxamed cabdullaahi farmaajo madaxtooyadii adeerkii maxamed siyaad bar laga eriyo jooga lama xabadayn lama dagaal lama dhihin aada cadda jaajuus xagu ku ah lama dhihin cabdullaahi ciise maxamuud jaajuus xagu ku ah lama dhihin janaal maxamed faarax ciidi sow xaguu yeey ku noqday lama dhihin hawiye goormay yeey noqdeen buuggiisu ku qor lama dhihin lama weydiin soomaalinimaa laga ala fiirinayaa lacagta u isticmaalaya maxamed cabdullaahi farmaajo dekeda boosaasa kama imaan dekeda kismaayo kama imaan dekeda berbere kama imaan waa canshuurta laga qaadayo hooyada iyo aabbaha hawiye ee ku nool gobolka banaadir waa canshuurta ka soo baxaysa dekadii airportka beel caan lacag bixisa maaha wax uu madaxweyne ku yahay wax cunug waardiinayo cunug maryaxaana ma aha waa askari amisooma iyo cunug hawiyaa waardiinaya maxamed abdullaahi farmaajo bal ka warram haddaa idinka joogi lahaydeen maxaa samayn lahaydeen ya taariikh baa qormaysi maxamed siyaad barre
انقلاب ملتري دولكو قبصدي حبدا لوغا ساري حسن شيخ محمود markuu ka adkaaday oo cod uga adkaaday ee hawiyuhu codeeyeen farmaajo kuwa kaasi sharaf la ku wareejiyay waa kan qabso si dimuqraadi mawcuur nin daaloodo way hal xabaday nin mariixaan hal xabaday mawri ee dhikil liyaado casheeq ma dhihi marka waxaan u baahanahay inaad qalbiga furtaan dhigaha furtaan isna ceeb wax ma taro inaan ku noocayna in nacdo qabiil ahaan u nacdo wax ma tarto haddaad wadani tahay qof yahow Soomaaliga Ethiopia dalkeena horor ku ah jaajuusinta Ethiopia la dagaal farmaajo taageer jeclow dawladda taageer jeclow laakiin haddood ku aragtaa soo magacaabay qof Ethiopian oo jaajuusa no odeer ku maya waa jaajuus Ethiopia raali kama yihin ma yeelayno qayli ha وقولida kaliya hadduu gabar hawiya wax ka sheegto 10 gabdhood hawiya Allah ku dhahayo waa ku xadgudubtay raali naga ahaada waa Soomaalinimada waa dhaqanka toosan laakiin haddii adiga aad aragto odayaal waaweyn oo xirka ka soo baxda anaga dumarkeena ka raali geliyina hadaa laakiin 10 oday ee ka soo baxda adiga xirale oo soo fadhiyo Facebook iyo TV-da ay tamayo qabiil dhan caynayo oo dan ka dhehayni war waxaan raalaha laga ahaado maxaa taadi ba ii sheeg marka ha waxanuusanayaa markaan ku leeyahay waxa weey aniga shakhsiyan waxay ku hadashay gabadhii muno jalsaad gabadh adeerkii gabadh dhalay ya wala ooynay لأنه أنا محمد سياد بر أديركي ودري أديركي أو سجل دالك وقبتي أفكين بكل جري أيو تيركا صوت تاجي أو حمر كل حتوكتي هذا نيكي جالسن وين أدركتهم ويرجي محمد سياد بر هالكلمة كمشي ما أنت صلاة قبير ما أنت وقت دمية سراكيل كانوا جال عينا شيء كمديهين ولا لدي ولقين ما أركتين سو ما دقن بيله هدين مدحوينها وحدالك أهاي مريحانها كأهاي مدحوين محمد سياد برجال ولقين ما أركتين انت اللي سيمت ضيال مريحانا أما سراكيل مريحانا فريستي يري وحينو بحيننا ما أنت مكتي جنال صلاة قبير ما أركتين ما أركتين halkaasuu nooga yaalaa haddaan farmaajo maqalno magaciisa waa xasayn haddaan siyaad bara maqalno waa xasayn haddaan mariixaan maqalno waa salaad gabayraa xasayn anag halkaasuu nooga yaalaa bay ku sheegi maa salaad gabay nala dilay xasan gar guurtoo nagala dila ma ahayn على أي حال waxaan ku soo gabagabaynayaa weertayda dadka Soomaaliyeedu qofka ku faraxsan Ethiopian inuu farmaajo magacaabo jaajuusta Ethiopia inuu xil u dhiibo qof ku faraxsan walaalayaal qofkaas isku wadan ma yihin isku dhaqan isku dabeecadna ma nihin isku Soomaali isku isirna ma nihin qofka waa qof aniga xaqii wuxuu ka yahay aan qalbi lahayn oo xis lahayn aqliga la ya aniga yeeli maayo jaajuuska Ethiopianka waa fiican yahay wuxuu ku fiican yahay farmaajo soo magacaabay markuu xasagar guurta soo magacaabay jaajuuska Ethiopianka waa xun yahay laakiin markuu farmaajo soo magacaabay waa fiican yahay ama maalmo uu joogaa ama isbedel loo baahan yahay ma yeelay tuuga xasan soo magacaabay garguurta iyo tuuga farmaajo soo magacaabay waa simeeyeen jaajuuska garguurta soo magacaabay iyo jaajuuska farmaajo soo magacaabana way sameeyeen isku si oo la dagaala baa una xaristo ugu dambeyn inta qalbiga fiican ee qolkan ku jirto waxaan leeyahay
maxamed dheel iyo adeerkay salaad gabayre ee baha u naxariisto faataxada aan u akhrino dadkan oo mataqaanaa soomaalinimada meel uga dhacay dhaqanka suubanna waxaan leenahay ilaahay soo hadeeyo waxaan leenahay kollaytaba waxaad fashaan baa la fali haddaad soomaalinimo rabtaana welcome haddaad rabinina aniga waxay la tahay dadku inay idin jawaabi doonaan oo wax kastoo tiraadaan ay gabdhaha iyo wiilasha hawiye ku filan yihiin inay ka jawaabaan waxa dhahdaan waatan cali khalifa wuxuu yiri xamar waxaan ka soo bartay irka hadduu soo dumo meeshaad ka gashaan ka galayaa anna waxaan leeyahay annagoo necbayn annagoo soomaalinimada ilaalinayno haddii isir iyo la sugi maado ay la fataabad noqoto wax allaalay waxaa dhahdaan dhahayna wax kastoo samaynayna wax allaalay waxaad xumaan tiraahdaan ayaan dhahaynaa laakiin taas micnaheedu ma aha inaad dowladnimo naga leedihiin anigu waxaan habeen maal u doodo ee jeel ogaadeen ka buux waa dad ogaadeena wey u badan waa soomaali laakiin waa gobonnimo doon soomaaliyeed kaas inaan ka soo saaro xabsiga xorriyad uu helo xamar iyo meel walba soomaali ka mida uu ku laafiyoodaan doonayaa ee ma doonayo jaajuus kaloo lagu dul magacaabo hadduu siyaasiga soomaaliyeed ee farmaajo uu ka mid yahay oo kooma gala marka xilka loo magacaabo maskaxdiisa wax iska bedelaan aniga shaqadeeda ma aha aniga shaqadeeda waxaa inay Etoobiyaanka neel saaro toos ku ifiyo daba galo ka daba tago halkaasay tegaysaa ilaahay jannadii firdaws ka waraabiyo saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee kacaankii 12 sano maxamed siyaad barre oo xaqdarada ku dilay ilaahay jannada ka waraabiyo adeerkay janaal salaad gabayre adeerkay maxamed dheel iyo saraakiishii kale ee la dilay oo aan magacyadooda xasuunin kulligood waxaan leeyahay ilaahay mataqaanaa jannatu firdawso ka waraabiyo waxaad gacan ka xaq daran waxa lagu dilay si xaq darro ah waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliyeedkuna ha dhacaano jaajuusinta iyo dadka qabiilka qalbiga uu ka dilana ha dhacaano inta caafimaadka qabtana Allah u siyaadiyo wabillahi tawfiiq waxaan leeyahay habla iswa daahir cala soo laba xaniyood lama meeriyo wax rabo leeyma meeriyo leeyma meeriyo weligay awoogi wuxuu kuma maahjir taana xumaan iga maqan taksiyana uu jeertaa hadii hal taan xumaan iga maqanta weligay leeyma meerin weligayna qaadan maayo hadaa jaajuus adiga aad u shaqeeyaysa jaajuuska Itoobiya noqo aniga waxaan noqonaa qofka ugu dambaysa ee Itoobiya ay disho ama Itoobiya afkeeda dalka ugu xoreysan noqonaa